Doorashada Mareykanka waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu saameynta badan adduunkan, iyadoo saameyn ballaaran ku leh gudaha iyo dibadda Mareykanka, iyadoo loo tartamayo kursiga ugu sarreeya ee madaxtinimada. Doorashada sanadkan waxay leedahay xiise gooni ah maadaama ay ku loolamayaan federalism-ka iyo dimuqraadiyadda. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa doorashada Mareykanka ee dhici doonta sanadkan dhammaadkiisa, yaa ku loolamayo iyo cidda ku awoodda badan, inagoo isbarbardhig ku samayn doona dimuqraadiyadda iyo federalism-ka. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Inta aynan guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Aad baad u mahadsantihiin. Haddii aynu ku horumarno awoodda federaalka, nidaamka federaalka ee Mareykanka wuxuu awood u qaybiyey maamul goboleedyada iyo dowladaha dhexe iyadoo wadaagaan go'aamada muhiimka ah. Gobollada hoose waxay leeyihiin awood weyn oo ku saabsan sida doorashooyinka loogu qabto xuduudahooda. Maamulka doorashooyinka, maamul goboleedyada ayaa mas'uul ka ah doorashooyinka iyagoo dejiya sharciyo ku saabsan diiwaangelinta codbixiyayaasha, qaabka codbixinta, tusaale ahaan codbixinta iyo boostada meesha lagu rido warqadda. Gobol walba wuxuu leeyahay nidaamo u gooni ah. Xarumaha codbixinta waxaa ka jira kala duwanaansho weyn oo gobollada si gaar ah u maamula doorashooyinka. Gobol kasta wuxuu leeyahay tiro ergey ah. Ergeyga doorashadu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa cidda noqonaysa madaxweynaha, maadaama aan codadka dadweynaha oo keliya go'aaminin natiijada. Tani waa mid ka mid ah astaamaha nidaamka federaalka ee gaar ka dhigaya doorashooyinka Mareykanka. Gobol walba wuxuu dejin karaa sharci gaar ah oo ku saabsan qaabka codbixinta. Gobollada qaar waxay leeyihiin sharciyo adag oo ku saabsan diiwaangelinta dadka codbixinta ah, halka kuwa kaleetana ay fududeyn karaan qaabka codbixinta ee doorashooyinka. Taasi waa mid ay ku kala duwan yihiin gobollada uu ka kooban yahay Mareykanka. Haddii aynu fiirino nidaamka dimuqraadiyadda Mareykanka waxay ku salaysan tahay fikrada ah in awoodda talada ay ka timaado dadweynaha. Doorashooyinka waa habka ugu muhiimsan ay dadku codkooda ku dhiibtaan si ay u doortaan hogaamiyayaasha dalkooda. Dimuqraadiyadda waxay iftiimisaa dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan doorashada sanadkan. Xuquuqda codbixinta. Muwaadiniinta Mareykanka waxay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo ah inay codeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda dhabta ah waxay tahay in qaar ka mid ah codbixiyayaasha laga yaabo inay la kulmaan caqabado sida shuruudaha diiwaangelinta adag ama fursadaha codbixinta oo xaddidan. Farqiga u dhexeeya maamul goboleedyada oo qaarna fududeeya codbixinta halka kuwa kaleetana adkeeya codbixintooda. Saameynta ololaha siyaasadeed. Dimuqraadiyadda waxay ogolaataa tartan furan oo loogu talagalay musharaxiinta. Ololayaasha siyaasadeed ee Mareykanka waxay weheliyaan warbaahinta iyo lacagaha waaweyn oo laga soo ururiyo warbaahinta iyo shirkadaha waaweyn. Ololayaasha waxay kaalin weyn ku leeyihiin sida dadweynaha loogu qancin lahaa musharaxii ay dooran lahaayeen. Inkastoo dimuqraadiyaddu asal ahaan ay tahay nidaam ku salaysan codka dadweynaha, nidaamkani wuxuu bixiyaa faa'iidooyin gaar ah oo federaalka ah. Waxaa dhici karta in madaxweynuhu uu ku guuleysto codka isagoo aan helin codka ugu badan ee shacabka, taas oo keeni karta su'aalo ku saabsan sida dimuqraadiyaddu u shaqeyso marka la eego codka dadweynaha. Kala duwanaanshaha siyaasadeed gobollada iyo midda dalalka oo dhan. Federaalku wuxuu siinayaa gobollada awood ay ku kala duwanaan karaan siyaasado, taas oo micnaheedu tahay in mid walba uu siinayo shuruuc gooni ah uu ku soo saaro codbixiyayaasha ee gobolkaasita. Sanadkani waxaa ku loolamaya dalka Mareykanka madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kaleeto gabadha la tartami doonta ee Kamala Harris, taas oo beddeshay madaxweynaha haatan dalka Mareykanka ee Joe Biden. Doorashadani
waxay leedahay caqabadooyin aad u daran sababtoo ahi taageerayaasha Donald Trump waxay u hanqabaan in Donald Trump haddii laga guuleysto ay dagaal ku baaqi doonaan halka federaalkuna ay u tahay haddii Donald Trump uu soo laabto caqabadihii ugu weynaa ee soo wajaha sanadadii u dambeeyay. Haddii uu guuleysto Donald Trump waxay ka dhigan tahay inuusan ku mashquuli doonin dalalka soo koraya sababtoo ahi Donald Trump isagu wuxuu xooga saaraa dhanka dhaqaalaha waxayna iswajihi doonaan dalka Shiinaha sababtoo ahi Shiinaha isagu wuxuu la soo baxay siyaasad cusub oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka difaaca. Donald Trump waxaa inta badan lagu yaqaanaa inuusan faragelinin goobaha dagaalada balse isagu wuxuu u janjeeraa dhanka dhaqaalaha. Waxaa laga yaabaa inay isaga iyo Shiinaha inay isku dhacaan sababtoo ahi isagu wuxuu fiiriyaa meelaha dhaqaalaha aad u weyn uu ka socdo waxaana ugu horeeyo sanadadii ugu dambeeyay dalka China. Donald Trump haddii uu soo laabto wuxuu ku baaqay inuu soo afjari doono dagaalka ka socda dalka Ukraine taas oo ka dhigan in Ruushka uu guuleysan doono reer galbeedkuna ay khasaari doonaan maadaama in badan ay ku bixiyeen hubkoodii si ay u baabi'in lahaayeen dalka Ruushka. Balse reer galbeedku mar walba waxay ka cabsi qabaan inuu soo baxo Donald Trump kaas oo u janjeera dhanka dhaqaalaha uusan fiirinin dhanka dagaalada. Haddii aynu u fiirino dhanka Falastiiniyiinta madaxweynaha soo bixi doona iyagu midna uma roona sababtoo ahi Joe Biden waanu u jeednaa sida uu u galayo Falastiiniyiinta maanta maadaama hubka Israa'iil uu u soo dhiibayo mar walba iyaguna ay ku baabi'iyaan shacabka Falastiiniyiinta. Haddii uu soo baxo Donald Trumpna waxay uga dhigan tahay sidii markii horeeta uu sameeyey Donald Trump inuu caasimadii guumeystaha uu ka dhigay magaalada Qudus. Midna uma roona balse mar walba waxaa dhici doona wax Alle subxaanahu wa tacaala uu u qadaray inay ku dhacaan Falastiiniyiinta. Waxaynu Alle subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa Falastiiniyiinta inuu ka dulqaado dhibaatadani ku habsatay. Mareykanka waxaa laga cabsi qabaa sanadkan inay ka dhici doonaan dagaalo haddii aan la dooranin Donald Trump. Waxa uu sheegay inuu ku baaqi doono dagaal sababtoo ahi doorashadii 2020kii waxay ku dhamaatay iyadoo dood ka dhacaysa Donald Trump uu ku baaqayo in isagoo la doortay laakiin tiimka Joe Biden ay khiyaaneen codbixiyaashii ee doortay isaga. Balse tookadan waxaa la filayaa haddii la dooran waayo Donald Trump inuu ku baaqi doono dagaal. Dadka adduunka jooga dhan waxay isha ku wada hayaan sida ay ku dhammaan doonto doorashada Mareykanka. Muuqaalkeena maanta ee aynu kaga hadlaynay doorashada Mareykanka intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaad horey noola joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Wixii aragtidaada ahna ka dhiibo dhanka commentiga ee hoose. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku eg yahay. Inta aynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.